الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركلة channel كيني أها توسين تقراتك يبرشد حكمة ولا شيني اسمها خليف علي مركلة إذين سيدا وحتى يالي وقلب دوران ما شاء الله وحان ليه ولا لهيجي هوري يقول جوج ومهد سنتهين سو دوادا كو عصبنا سو دوادا maanta ismahaan maanta wixii ka dambeeyay waxaan isku dayi doonaa haduu ilaahay waafajiyo in maalinle xikmad ay idin soo diraaxa maalinle xikmad macnaha daily wisdom macnaha xikmada subhanallah ilaahay ayaa bixiyo xikmada ilaahay ayaa bixiyo ma sha Allah laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan idinka wada baranaa mar walbana ogaada waan isla baranaynaa waan isxasuusinaynaa waan isla wadaagaynaa waan isla wada jiraynaa waan isla wada soconaynaa waan isla wada leenahay channelkana waan isku xirnaanaynaa wixii wisdom ama xikmad igu soo qor commentigana iisoo gudbi anaa soo faahfaahin doonaa maalinlaha wisdomkana waxaa uga dan leeyahay in kitaabka quraanka iyo sunnada nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waa in xikmad ku qaadnaa hadaa baranaa waxa rati noqo sida doontiyaal hadaadan xikmad lahayn way xun tahay xikmada qofka xikmada lehna waa qof indheer garada qof aqli badan aqligane waa soo sharaxnay wax badan waa ka soo sharxay garaadka toosan waa ka soo sharxay wax fara badan soo sharxay hadana waa idin soo sharxi doona wax kale fara badan oo wanaagsan wax ka bedeli kara oo tayo leh aan ku haya insha Allah aan ku faaneynin meesha waxaan kale ku leeyahay walaashay iyo walaalkay qaaliyo xikmada Ilaahay ayaa bixiyaha laakiin qofku Ilaahay la doono siyaaya la dhahay laakiin aniga maxay idin sidaa barashadeeda taasna waa tu anaga naga maqan maanta Soomaali hadaan nahay aad iyo aad ayaan ugu baahanahay maanta barashada xikmada marka maxaa idin soo qaadaa maanta hal ayaa idin soo qaadaya hal xikmad tee idin soo qaadaa marka waxaa idin soo qaadaya hal xikmad isla weynidan ka hadlaynaa marka maanta xikmad ku saabsan isla weynida ayaan idin kala hadlayaa inkastoo soo diyaarin laakiin ma sha Allah waxbaan ka hayaa madaxayga ma sha Allah qofka binu aadanka isla weynida inay xun tahay qof kasta oo isla weynaada wuu hoos mari doonaa waa xikmad maalinta isla weyni ku gashaaba ogow inaa hoos u dhici doontid waa xikmad iga qaba maanta hashaas xikmad ayaa maanta ku bilaabay ruux kasta oo isla weynaada hoos u dhacaya isla weynida marka maxay ku dhacdaa isla weynidaada waa ina adiga dhadhamisid qof kasto maanta anagana way hebel isla weynta hadii la dhuxlo aniga islama weyni laakiin waa isla weynana boqolkiiba intaas qab ayaa nagu jiro ego weyn ayaa nagu jiro marka qofka muslimka inuu isla weynaado ma aha inuu egogaaga iyo qabkaaga ka adkaado ma aha waxa la rabaa in aan qabka dilnaa kill your ego that is macnaha waxa waa islaam waa islaamka xaq qofka markuu ku tagnaada qab ma leh qof kasta oo qab weynaadana ha u maleynin inuu ka sareeyo xikmad kale waa iyadana qabso hadda u maleysid maxaa yeelay adiga xikmad ma lihid ana aqligaaga maskaxdan Ilaahay ku siiyay iyo wadnahaaga hadda isku xirneen isdaafa noqonaysa waxa laga rabaa inaad wadnahaaga isticmaashid maskaxda ku xirtid laakiin qof oo qab ku jiro hadda aragtid kula weynaada macnaha matid qof oo nadiif qof isla weyn dad fara badan waxay ka helaan dadka isla waaweyn ka helaan dadka isqurqurxiyo iska siisiyo dadka qaar ka helaan dad waxay ka helaan macnaha hadda ka heshid dadka isqurqurxiyo isweynaysiyo hadda ka heshid waxay la mid tahay xikmad mali macnaha qofkaas quruxdaas iyo waxaas uu yeelay waxba ma aha hoostiisa gudihiisa wadnihiisa maxaa ku jiro marka qof liito oo daciif oo banaanka iska jiifo gurigiisa hadaa aragtine ma yeesaysid hadaa xikmad leedahay maxaad u yeesaynin waxa fiirinaysaa waxa ku jiro wadnihiisa ogaada dadka ha ku qiimeenin quruxdiisa ha ku qiimeenin islibskiisa
ha ku qiimeynin cilmigiisa, ha ku qiimeyn, waxaa ku qiimeysaa waxaa wadnihiisa ku jira oo akhlaaq iyo diin iyo xaq iyo cadaalad iyo tarbiya iyo edab iyo sugnaanta xaqa inay wadnihiisa ku sugan tahay diinta islaamka ayaa qofka lagu jeclaadaa. laguma jeclaado qofka aragiisa, laguma jeclaado isla weynidiisa, laguma jeclaado qabiilkiisa, laguma jeclaado lacagtiisa, laguma jeclaado wuxuu haysto. walaalayaal qaaliyayaalow, qalbi u roonayaalow, ka fiirsada qofka qabka badan ee isla weyn ha jeclaan, hana ka mid noqon. walaashaa ismahaan waxay ku leedahay haddaa ka mid noqotid xikmad ma lihid, birina qofkaas markuu soo dhaco waad nacaysaa, markuu ficnaadan waad jeclaanaysaa. qof xikmad lamidid qofka wax ku siiya waa jeclaanaa, qofka wax siinin waa nacaa, qofkii waaweyneeya magacay qaqaada waa jeclahay, qofkii i rabin waa nacaa. ma aha, waxaa lagaa rabaa dhexdhexaad, qof udub dhexaad leh oo xididadiisa adkaystay xaqa ku sugan oo xidida adag roots adag leh ayaa lagaa rabaa. wadnahaagaas quruxda badan dhiigga burqamaya caafimaadkaaga ku jiro iyo cibaadadaada iyo waxaaga iyo diinta islaamka inaad wadnaha ku sugtid, xikmadda wadnahay ku jirtaa, wadnaha si fiican uga shaqaysiisid oo xikmadaada wadnaha kasoo saartid oo si fiican u isticmaashid. ilaahay wuu ku siiyey laakiin waa ku hilmaamtay meesha, maxaa yeelay qabkaagii iyo shayaadiinta ayaa maskaxdaada maamulay, kadibna ayaga ayaa raacday. marka in aad xikmadda yeelatid ayaa waxaa ku noqonaysaa qof nadiifa islaami oo toosan. haddii kale kitaabka qur-aanka waa baranay waxaa u baranaysaa calaa dad, waxaa u baranaysaa calaa lagaa sheegay, waxaa u baranaysaa kufaanta, waxaa u baranaysaa waa barte. waxaas dhanna lagama rabo. maasha allah, waxaan idin leeyahay ballanteenu maxay ahayd wanaag, ballanteenuna waa wanaag iyo xumaantoo la reebaa. waxaan idin leeyahay halkan kala socda daily wisdomkeena ama maalinlaha xikmada ee idiin soo daynaysa walaashiin ismahaan khaliif oo idin leh mar kale kulanti wacan. yaa warka idinku badinin, 7 minute ayuuba gaarayba, ma rabin 5 minute inaa idinkaga dhigaan rabay. marka saas ayaan isku ognahay, waa idin dheereyn doonaa hadalka inaa idinku badiyaan diidayaa. intaas yar wax kala baxa. walaashay qaali qalbi uroon iyo walaalkay qaali qalbi uroonayaalow, kusoo dhawaada channelkeennii ahaa toosinta garaadka iyo barashada xikmadda iyo daily wisdomkeennii halkaan nooga socon doono. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ha hilmaamin like, subscribe-ka, ha hilmaamin faafi qeyrka. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.